hay-aduhu waxay samaynayaan qorshayaal ay ku qabanayaan dhagaxyada nidaamyada kale ee qorraxda. Dabayaaqadii 2017, shay dahsoon ayaa ka dhex dilaacay nidaamkeena qorraxda oo xawaare jaban ku socda. Xidig-yahanada ayaa u tafaxaytay si ay u eegaan jidka dhaqdhaqaaqa dheereeya iyaga oo isticmaalaya teleskoobyada ugu awoodda badan adduunka. Waxaa la ogaaday in dhererkeedu yahay 1 mayl rubuc 400 mitir oo aad u dheer, laga yaabee 10 jeer inta ay ballacnayd. Cilmi baarayaashu waxay u bixiyeen Oumuamua Hawaiian Force Route. Saaxiib sabiskaraab isaara sidii aan u dhahayay waan daalay aan ku leeyahay maad isaartiin mahadsanid. Oumuamua ayaa markii dambe la xaqiijiyey inuu yahay shaygii ugu horeeyey ee xidig kale oo loo yaqaan inuu soo booqday nidaamka qorraxda. Inkasta oo walxahan isdhexgalka ahi isoo ay ka soo jeedaan agagaarka xidigta, waxay ku dhammaadaan sidii reer guuraaga cosmic oo dhex wareegaya meel bannaan. Asal ahaan waa jeexmeerayaal ah kadib markii ay ku qarxiyeen nidaamyada xidigaha waalidkood dhacdooyin masiibo ah, sida shilalka waaweyn ee u dhexeeya walxaha meeraha. Xidig-yahanadu waxay yiraahdeen Oumuamua wuxuu ku dhex safrayay jidka caano 100 milyan ka hor inta uusan kulmin nidaamkayaga qorraxda. 2 sano uun kadib booqashadan lama filaanka ah, iso labaad Borisov Comet ayaa lagu arkay markan xidigiya hiwaayad ah oo ku sugan Crimea. Isdhexgalayaashan samada ahi waxayna siiyeen muuqaalo wax ku ool ah oo ka yimid meel ka fog nidaamka qorraxdayada. Laakiin maxaa dhacaya haddii aan samayn karno wax ka badan kaliya daawashada iyaga oo duulaya? Barashada isoyada dhow waxay siinaysaa saynisyahanada fursad naadir ah oo ay wax badan uga bartaan nidaamyada xidigaha fog, kuwaas oo aad u fog in loo diro howlgallo. Waxaa jiri kara in ka badan 1 eber septillion ama 10 eber isoyada jidka caanaha keligiis. Laakiin haddii ay aad u badan yihiin, maxaan u aragnay 2 kaliya? Si fudud u dhig, si sax ah uma saadaalin karno goorta ay imaanayaan. Isoyada waaweyn sida Oumuamua oo si fudud loo ogaado, uma eka inay booqdaan nidaamka qorraxda oo marar badan waxayna u socdaan si cajiib ah. Teleskobes ku salaysan dhulka iyo meel bannaan waxay halgan ugu jiraan inay si degdeg ah uga jawaabaan isoyada soo socda, taasoo la macno ah inaan inta badan fiirino iyaga kadib markay soo maraan xaafadeena cosmic. Si kastaba ha ahaatee, howlgallada cusub ee meel bannaan ayaa naga dhigi kara in aan u dhowaado walxaha sida Oumuamua, annaga oo adeegsanayna horumarka sirdoonka macmal si ay ugu hagaan dayax-gacmeedyada si badbaado leh martida mustaqbalka. U soo dhowaanshaha waxay ka dhigan tahay inaan heli karno faham wanaagsan oo ku saabsan hal-abuurkooda, geologiga iyo howlahooda, helitaanka fikrado ku saabsan xaaladaha ku xeeran xidigaha kale. Tiknoolajiyada soo ifbaxaya ee loo adeegsado in lagu wajaho qashinka bannaan waxay gacan ka geysan karaan in loo wajaho walxaha kale ee aan la saadaalin karin, taas oo u beddelaysa kulamadan daba dheeraaday fursado cilmiyeed oo qoto dheer. Haddaba sidee ayaan isugu soo dhowaan karnaa? Xawaaraha dhulka ku dhaafa celcelis ahaan 3.2-4 km isos waxayna siinayaan wax ka yar 1 sano dayax-gacmeedyadeena si aan isugu dayno oo aan uga hortagno iyaga marka la ogaado. Qabashada ma aha wax aan suurtagal ahayn. Tusaale ahaan, waxaa lagu samayn karaa iyada oo loo marayo dhaqdhaqaaqyada darbaaxada. Si kastaba ha ahaatee, way adag tahay, waa qaali waxayna qaadanaysaa sannado in la fuliyo. Warka wanaagsani waa in mawjadda ugu horeysa ee howlgallada ugaarsiga iso ay hore u socoto. Fikradda hadafka NASA waxaa loo yaqaanaa Bridge iyo wakaaladda hawada Yurub. ESA waxay leedahay howlgal la yiraahdo Comet Interceptor. Sawirka dayax-gacmeedyada la soo jeediyey ee dhexda gooyo. Hawsha Comet Interceptor waxaa loo qorsheeyey in la bilaabo 2029. ESA shaqada ay qabato adk oo qandaraas kula jirta ESA. ESA Abisa. Marka la aqoonsado isaga soo socda, buundada ayaa ka tagi doonta dhulka si ay u dhex gasho. Si kastaba ha ahaatee, ka soo saarista dhulka hadda waxay u baahan tahay daaqad furan oo 3 eber maalmood ah kadib markii la ogaado, taasoo ku kici doonta waqti qiimo leh. Comet Interceptor waxaa loo qorsheeyey in la soo saaro 2029 wuxuuna ka kooban yahay dayax-gacmeed ka weyn iyo 2 baaritaan oo roboti ah oo yaryar. Marka la bilaabo, waxay sugi doontaa 1 milyan oo mayl u jirta Earth, iyada oo sugaysa inay gaadato majaajilada dheer ee dheer, mashruucyada qunyar socodka ah ee ka imanaya meel fog ama suurtogal ah iso. Gelida dayax-gacmeedka meeraha kaydinta waxay u oggolaanaysaa in si degdeg ah loo diro marka la helo iso ku habboon. Soo jeedin kale oo ka timid Maxadka Daraasaadka Interstellar, Project Lyra, ayaa qiimeeyey suurtagalnimada in la eriyo Oumuamua, kaas oo mar horeba aad uga fogaaday wareegga Neptune. Waxay ogaadeen inay suurtogal tahay aragti ahaan in la qabsado shayga, laakiin tani sidoo kale waxay noqon doontaa mid farsamo ahaan aad u adag. Howlgalladani waa bilow, laakiin sida lagu sharaxay, xaddidaadooda ugu weyn waa xawaaraha.
Si aan u ceyrsano isoyada sida Oumuamua, waxaan u baahan doonaa inaan si dhaqsiyo badan u dhaqaaqno oo aan u fakarno si caqli badan. Hawlgallada mustaqbalka waxay ku tiirsanaan karaan goynta ay iyo qaybaha la xidhiidha sida barashada qoto dheer, kuwaas oo doonaya inay ku daydaan awoodda go'aaminta maskaxda bini'aadamka, si loo aqoonsado oo looga jawaabo walxaha imaanaya wakhtiga dhabta ah. Cilmi baadhayaashu waxayba tijaabinayeen dayax-gacmeedyada yaryar ee ku shaqeeya raxan, taas oo u oggolaanaysa inay ka sawiraan bartilmaameedyada xaglo badan oo ay la qabsadaan duulimaadka dhexe. Sahan 1 eber sano ah oo irka habeenkii ah ayaa lagu wadaa in dhowaan la bilaabo. Sahankan xiddigiska ayaa la filayaa in la helo daraasiin isoyo ah sannad kasta. Jilidyadu waxay soo jeedinayaan in laga yaabo in aan ku jirno qarka u saaran koritaanka ogaanshaha. Sawirka Vera Rubin Observatory. Dayax-gacmeed kasta waxa uu u baahnaan doonaa inuu xawaarihiisa sare gaadho marka shay la arko oo uu hubiyo in isha tamarta ahi aanay hoos u dhicin, lagana yaabo sannadaha kadib inay sugaan koritaanka kaydka. Tiro hawlgallo ah ayaa horay u isticmaalay nooc kicin ah oo loo yaqaan shiraac cadceedda. Kuwani waxay isticmaalaan iftiinka qoraxda ee shiraaca fudud ee miisaanka leh si ay ugu riixaan hawada sare. Tani waxay meesha ka saaraysaa baahida loo qabo haamaha shidaalka culus. Jiilka soo socda ee dayax-gacmeedyada shiraaca cadceedda waxay isticmaali karaan lasers on shiraacyada si ay u gaaraan xitaa xawaarahooda sare, kaas oo bixin doona xal qiimo jaban marka loo eego shidaalka kale ee mustaqbalka, sida kicinta nukliyeerka. Dayax-gacmeedka ku soo wajahan waxa uu sidoo kale u baahan doonaa inuu u adkaysto heerkulka sare iyo suurtagalnimada nabaad guurka ka imaanaya boodhka shayga marka uu dhaqaaqo. Iyadoo agabka gaashaanka dhaqameedku ay ilaalin karaan dayax-gacmeedyada, waxay ku daraan culays waxayna hoos u dhigi karaan. Si taas wax looga qabto, cilmi baarayaashu waxay sahaminayaan tiknoolajiyada cusub ee loogu talagalay walxaha fudud, adkaysi badan iyo kuwa adkaysiga leh, sida fiilooyinka kaarboonka ee horumarsan. Qaarkood xitaa waxaa laga yaabaa in la daabaco 3. Waxay sidoo kale eegayaan isticmaalka cusub ee agab dhaqameedka sida buskudka iyo dhoobada. Waxaa loo baahan yahay habab kala duwan oo ku lug leh teleskobes ku salaysan dhulka iyo howlgallada meel bannaan, ka wada shaqaynta si loo saadaaliyo, loo eryo loona ilaaliyo isos. Tiknoolajiyada cusubi waxay u oggolaan kartaa dayax-gacmeedka laftiisa inuu aqoonsado oo saadaaliyo raadraacyada walxaha imaanaya. Si kastaba ha ahaatee, goynta suurtagalka ah ee sayniska hawada ee Maraykanka, oo ay ku jiraan kormeerayaasha sida James Webb Space Telescope, waxay halis gelinayaan horumarka noocaas ah. Tiknoolajiyada soo koraya waa in la qaataa si loo sameeyo hab iyo dib u habayn lagu sameeyo isu suurtagal dhab ah. Haddii kale, waxaa la inagu dayn doonaa isxoqid oo sawiro meel fog laga soo qaadayo, mar haddii mid kale oo irwareeg ahi uu sii dheereeyo. Billy Brian, hogaamiyaha cilmi baarista RAN Europe, Tris Arter, falanqeeyaha kooxda tiknoolajiyada sayniska iyo soo koraysa RAN Europe, iyo Theodora Ogden, falanqeeyaha sare, kooxda difaaca iyo amniga RAN Europe.